5 ديسمبر ساعتها Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 2 duhurnimo. Qodobada ku doontaan idaacaddeena waxaa ka mid ah duurka oo talaalkii ugu horreeyay fayraska corona maanta hirgeliyay. Maraykanka oo ciidamada Soomaaliya si jooga la baxayo haddaba ciidamadaasi halkay kala joogaan. Waxay kala joogaan Boosaaso, Kalakayo, Muqdisho, Galgaduud iyo Kismaayo waxay si dhow ah ula shaqayn jireen si joogto ah tababarka iyo kor joogteen ugu samayn jireen ciidamada commandoska ee qaranka. xaaladda magaalada Beledweyne oo maanta degan lacag $1 milyan lagu abaalmariyay oo lacagtii qaybiyey iyo qodobo kale oo ciyaaryaha kala yihiin. barnaamijka waxaa ku wada jiray soo saare Cabdisaaq Xaaji Cabdo iyo Samiir Cabdullaahi Saamac ana Cabdiraxmaan Xaaji Cabdo la socodsiinay mar kale duhur wanaagsan. qodobadaasi oo faahfaahsan inoo dambeeyaan marka waxaad ku dhawaataan warkii idaacaddeena duhurnimo waxaana diyaara Axmed Beder. naashanid cabdiraxmaan xaaji cabdow xukuumadda mooska ayaa xarga ka jartay barnaamij ballaaran oo ah talaalka fayraska corona inkastoo talaalka ruushka ee lagu magacaabo sputnik v uu weli ku jiro marxaladii ugu dambeysay tijaabada. madaxweynaha dalka ruushka putin ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay ruushka uu ku hogaamiyo talaalka ee gudaha caalamka islamarkaana dhaqaalaha waddanka weli yahay mid sidiisii hore ku socda. talaalka ruushka ayaa waxaa mudnaanta koowaad la siin doonaa dadka halista ugu jira cudurka ee nugul. golaha koongareeska ee dalka Argentina ayaa waxay ansixiyeen canshuur cusub oo laga qaadayo dadka maalqabeenka ah ee dalkaasi si lagu maalgeliyo barnaamijka samata bixinta dhaqaalaha dalkaasi ee uu saameeyay fayraska corona. madaxweynaha dalka Argentina Alberto Fernandez ayaa waxa uu rajeynayaa in canshuurtani cusub ay kusoo bixi doonto lacag $3 bilyan waxaana arrintan ay saameyn doontaa 12 oo canshuur bixiyaal ah. dalkaasi ayaa cambaarayay canshuurtan laga qaadayo dadka milyaneerka ah oo ay sheegeen in tallaabadan ay dalka ka hortaagi karto in maalgashi caalamiga lagu sameeyo. Michael Obama oo ah mas-uulka midowda Yurub u qaabilsan wadaxaajoodada ka bixitaanka Britain ee midowda Yurub ayaa wuxuu ka gaabsaday inuu ka hadlo inay jirto fursad ay heshiis ku gaari karaan labada dhinac. waxaa hakad la geliyay wadahadaladii magaalada London islamarkaana waxa uu Obama uu dib ugu laabtay magaalada Brussels. xilli uu kasii dhoofayo magaalada London ayaa si fogan loo hadlay warbaahinta.